gudoomiye waad mahadsan tahay kulankii maanta aad yeelateen madaxweynaha iyo labadiina gudoomiye ee xisbiyada mucaaridka maxaa ka soo baxay waxaanu warramade waqtigii waa dhamaaday maxaa qabateen intii muddada qabsateen madaxweyne waxaanu qabanay ma jirto arrintu way nagala ballaaratay waxaan idii qirinaa inaan magaranaysaay guddidaasi aanay guddi qaban karta ahayn marka laga eego xagga tayada iyo xagga experience-ka waayo aragnimada go-aankina waanu qaadanay laakiin sharci ma hayno sharcina siiya markaa sharci ma hayo muxuu uga jeeday maxaad se u fahanteen idinku sharcigan ku kala jaro ma hayno yidhi daba waxaan yaano markay caawiyo saan ku caawinayo dee ha loo tago reerahoodii iyo waxaan dee caqli gelin waxaan waxaad ma jirtee madaxweyne adiga haye arrintii u yeero xataa is-asila wax kala farsamee sida hore loo sameeyey wuxuu yidhi madaxweyne hore iga geysana markaanu geesimay buu yidhi halkaasuu istaagay madaxweyne faruuga taagay arrintii go-aankii waan ogolay mana ogolay isku dhex jira wey micnihii waa ogolay afka laakiin ficil ahaan marka idinka maxay tahay tallaabada idin xigta ama go-aanka aad qaadanaysaan horta waanu isku noqonaynaa insha allahu tacaala guddidiina waanu wargelinaa waxaa jira mas-uul sare oo xisbiga ka tirsan oo xidhan madaxweynihiina waad kulanteen mar kale weli ma kala hadasheen madaxweynaha arrintaa habeen horaan ka wada hadalnay madaxweynaha oon yidhi de ninkan maxaad u haysataa inaan wixii waa seedigaya ii dhaaf arrimaha seedigaya soo dhexgeli buu yidhi waxaan idin war waa xogeeyahaygii dibadda wixii waxyaalahan isku haysana ii dhaaf seediga buu yidhi markhaatigaasa la fadhiya xogaha aanu hayno waxay sheegayeen in dacwad lagaa gudbiyey oo dowladdu kaa gudbisay siiba madaxtooyadu markii dambena wada hadal lagu dhameeyey arrintaa maxaa ka jira anigu imay soo galeen dacwadaasi lakin wax ka xun ba igu sameeyey madaxweyne wuu ila dagaalamay 27 bisha aan qarininay dalka dantiisaanu ka ilaalinay malamo maqal xafiiskiisu kula dagaalamay hooyadina caay intuu igu soo turay dhalo hooyada waxaa ku sameeyey wuu yidhi laadna igula soo orday laakiin waxaan yaan sheegin laakiin hadda waa sheegin marka arrinta sababtay inaad isku dhacdaan oo weliba aad isku gacan qaadaan maxay ahayd arrintaa waxaa isku keenay ninka la yidhaaho ramax ramax waaran baa loo soo jaray wixii waa sharci waxaan sharci ma haddii caynkaas noqoto dawladna inagu isdaafacnaa idinku waxaad tihiin xisbiyadii mucaaradka oo doorka dowladnimada qeyb weyn ku leh oo weliba la xisaabtankii dowladda ah ee lagu xisaabtamayeyna inay mustaqbalka bedeli doonaan marka idinka muxuu yahay maxaa laydinkaga talagelayaa ee idin qorshaysan waxa weeyaan madaxweyne ma ogola in la xisaabtamo in la taliyo in la shaqeeyo in la karisaas gareeyo wax laga sheego ma ogola madaxweyne xaajiis waan istilo anaga ma doonaa dalkayga mar dambe dagaal soo ka dhaca 1994kii isla dagaal ku waday ana waxaan guddi nabadda ayaan ahaa dee maanta maanta haddana aan noqdo warlord uma diyaariyey marka talan isku noqono waa talan reer Soomaaliya oo tala taagan tahay